Waa arrin mucjiso ah marka loo eego kumanaan noolayaal ah oo aan la aqoonin oo lagu arko hawada sare iyagoo dul heehaabaya. Dad ku sugan meelo kala duwan oo ka mid ah caalamka ayaa sheegay in mar waliba ay arkayaan noolayaashaasi oo lagu tilmaamo UFO ama UAPs. Saynisyahanada ayaa horay u beeniyay inay jiraan waxyaabahani iyaga oo sheegay in noolayaashaasi la hadal hayo aysan waxba ka jirin, balse ay yihiin oo keliya cara hawada ku samaysantay. Laakiin markii arrimahan ay dib u soo cusboonaadeen hadda ayaa hay'adda cilmi baarista hawada sare ee Mareykanka ee magacooda loo soo gaabiyo NASA ayaa sheegtay inay kooxo saynisyahano ay u dirayaan si ay u soo baaraan waxyaabahan lagu arko hawada sare ee dul heehaabaya. Waxaa rajo laga qabaa in kooxdani daraasaad ay sameeyaan ay helaan xal waara oo ku aadan xogta ku saabsan waxa ay yihiin noolayaashani. 9kii bishii Juun ayaa bayaan ka soo baxay maamulka NASA lagu diyaariyay kooxdan saynisyahanada loo dirayo inay soo baaraan waxyaabahani.